بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان داوديال halkaanu joogno waa degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe waxaadna ku soo dhawaataan barnaamijkan daawadayaal ugu talagalnay muuqaalka ama booqashadii magaalada Jowhar ee TV-ga caalamiga ee Somside barnaamijka daawadayaal waxaanu ku soo bandhigi doonaa guud ahaan xaaladda guud ee degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe iyadoo mudooyinkii ugu dambeeyay ay gacanta ay ku hayeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa midowga Afrika AMISOM sidoo kale daawadayaal waxaan barnaamijka aan ku soo qaadan doonaa guud ahaan xaaladda dhismaha iyo sidoo kale xarumaha qadiimiga ee magaalada Jowhar lagu xasuusto magaalada Jowhar waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan marka laga hadlayo degmooyinka ama magaalooyinka gobolada dalkeena hoos yimaada Jowhar waxa ay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya ay qiyaas ahaantii u jirtaa 90 kiiloomitir bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe waxa ay isugu jiraan qeybaha kala duwan waxaana ay yihiin bulshada ku dhaqan xoolo dhaqato iyo sidoo kale dad beeraley ah magaalada Jowhar waxa ku yaala xarumo badan oo taariikhi ah waxaase barnaamijkeena daawadayaal oo noqon doona inaan guud ahaan aan ku soo bandhigno jawiga guud ee magaalada Jowhar aan ugu horeyntii ku soo bandhigi doona halka aanu taaganahay oo dhinacayga dambe dadka qaarkii ay arkayaan waa halkii warshadii sokorta ee magaalada Jowhar oo dad badan ay wada garanayaan sida aad ka wareysan wixii ka dambeeyay burburkii ka dhacay dalkeena hooyo waxa laga dhaxlay dhibaatooyin aad u fara badan kuwaas oo ay meesha ay ka saartay dhamaan hay'adihii iyo sidoo kale xarumihii dawladda Soomaaliya ay lahayd iyo bulshadii Soomaaliyeed halka aad arkaysaan daawadayaal waa warshadii sokorta ee dalkeena hooyo ay lahayd waxa ay soo saari jirtay maalin walba sokor iyo sidoo kale waxyaabo kale oo isla sokorta ku tacalluqa iyadoo inta badan bulshada Soomaaliyeed ay arintaasi ay ka faa'iideysan jireen waxa ka shaqeyn jiray shaqaale aad u fara badan kuwaasoo wax badan ka soo saari jiray warshada sokorta ee magaalada Jowhar haddaba saameyn intee lag ay ku yeelatay burburkii dalkeena ka dhacay waad arkaysaa muuqaalka aad ka daawanaysaan TV-ga caalamiga ee Somside waxa jira in burburkii wixii ka dambeeyay dadka degan Jowhar iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed qaarkood ee dhibaatada dalka xilliga ka geysanayay wixii ka dambeeyay markii uu dalka uu ka tagay ama uu dhintay Allah u naxariistay hogaamiyihii Soomaaliya maxamed siyaad bare haddaba burburkii dalka ka dhacay saameynta uu yeeshay waad arkaysaan waxaa dhacay in warshadii guud ahaan aysan shaqeyn si aan wax badan uga ogaano xilliga warshada la aasaasay iyo sida ay ku shaqeyn jirtay iyo waliba waxyaabaha iminka la oran karo rajo ay warshada ay ka leedahay mar kale la soo aasaaso Ismaan Abikar Aadan ayaa inoo sharaxi doona oo kamid ah dadka ka shaqeyn jiray warshada Ismaan ayaa iminka ila taagan oo aan rabaa inaan ku soo dhaweeyo barnaamijkeenan isla markaana aan rabaa inaan su'aalo dhowr ah oo ku aadan warshada aan wax ka weydiiyo warshada markaan ka warbixiyo magaceedu waxa la dhahay wakaalada beeraha iyo warshada sokorta isna Jowhar afqaladna waxa lagu dhahay Société Nationale Agricole Industrielle de Jowhar ayaa lagu dhahay shaqaale fara badan ayaa ka shaqeynay beeraha iyo warshada gudaheeda marka taas darteed qasabka ay soo saari jirtay marka waqtiga xilliga ay warshada ay kacsan tahay ugu yaraan yoonkii waxay soo saaraysay 700 1600 ilaa 2000 markay soo saartana wiish ayaa la jeeri jiray oo falxad ah macnaha sokor badan ay soo saartay maalintaas ilaa 1500 1400 waa maalintii xoogaa cilida ay jirta shaqadeeda sidaas ayay aad kor iyo hoos beeraha waxa ka imaajiray qasab badan ayaa ka imaajiray shaqaale badan ka shaqeynay liin ayaa laga tacbay qasab ayaa laga tacbay waxa laga tacbay ma aragtay moosa laga tacbay oo waxa laga tacbay ma quddo ayaa laga tacbay ay soo saari jirtay warshada shaqaale badan ayaa ku noolay ee gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Jowhar gaar ahaan isku ma aragtay ay ka shaqeyn jireen haddana aad iyo aad ayay u burburtay nasiib wanaag hadii aan helaynay wax noo fiicnay ama noo dhiso Ilaahay noo keeno balse hadda waxa way warshadii way burburtay dad ayaana burburiyay oo Soomaaliyeedna burburisay yani cilmi la'aan haddana waxaan u baahanahay in warshadii la noo soo noolay ayaan u baahanahay باقي ugu dambeeya waanu diri doonaa ugu horeyn bal waxaad iga siisaa sharaxaad goorma la dhisay warshada goorka aan la dhisay ee maciidaan 1989kii ay ama aragtay la dhisay Dirsona Generale iyo warshada waata adiga marka waxaad ka mid ahayd shaqaalihii ka shaqeyn jiray warshada sanadkee ku soo birtay aniga waxaan ku soo biiray sanadka 1963 ilaa 1969kiina shaqo ayaan ka bilaabay oo macnaha wadanimo Ismaan waxa tahay odayaashii ugu caansan ee hadda ama qadiimiga ay ku nool magaalada Jowhar burburka hadda ku yimid oo kale warshada oo kale hadda isleedahay dib waa loo soo hagaajin karaa oo mar kale ay shaqeyn kartaa warshada hadii macnaha dad maalgeliye la helo sidii waa u shaqeyn kartaa sidii mar hore ay u shaqeyn jirtay si ka wanaagsan waa u shaqeyn kartaa hadii la maalgeliyo oo macnaha wax dhiso oo maalgeliye la helo
waata inta aad ka xasato oo kale shaqaalihii ka shaqayn jiray warshadan oo kale ma kaliya waxay ahaayeen dadka reer Jowhar mise waxaa jira in gobolada dalka Soomaaliya looga imaan jiro shaqaale kala duwan ay ka shaqayn jireen warshada waxaa imaan jiray ilaa Hargeysa Gaalkacyo Hiiraan gobolada dhexe Shabeellaha Hoose Shabeellaha Qiyaas maxay dhahaan marka Qoryooley meel kasta laga imaan jiray ilaa Kismaayo sida ay ku shaqayn jirto oo kale hadda muuqaalka waanu aragnaa godad badan baa ii muuqanayo oo yacni u eg sida hamam oo kale sidee marka warshada ku shaqayn jirtay waxay ahayd hamamkaasi wax lagu shiidayo hamamkaas waxay ahaayeen turbaha sokorta cadeeya kuwa ka koofare waxaas ahay macna iskiyuma la dhihi jiray waxa ka horeyn waxaas ahay macnaha maxay dhahaan mulina waxa ka sii horeeya iskaarikaan oo qasabka lagu rogay qasabka markuu iskaarikaan lagu rogo mulina soo dhacay mulina waxay u dhiibaysaa macnaha iskiyuma u dhiibaysaa waa filtreynaa qasabka iskiyuma waxa u dhiibay dhiriya karkariska markay sokorta ka kariso waxay u soo gudbinaysaa filtera ma u soo gudubto waa ka shaqeynaa mushkil turbo leeyahay ma arti sokorta laba ay ku soo dhacaysaa markay nadiif ay ka dhigtaa sokortiga guduud oo wasakhay oo safiican u cadaanin waxay u soo gudbaysaa turbaha ayaa cadeey jiray waa dhiibi jiray xaqinkaas ku aad saal insaanka iyo saal maakaas u gudbinay saal insaanka marka laga sameeyay waxa uu dambeysay maxay dhahaan maqaasiin sokor ay ku dhaceysay maqaasiin sokor reestideed waa karta marka kadib seel loo shaandheyn jiray ma waxa la sameyn jiray in sokorta markay soo baxdo waxyaabaha hadda lagu shubo aragtay oo kale ay ka mid yahay jawaankii waxaas ma qayb kale oo shaandheyn meelaheed oo warshada lagu hayo meelaha ay martay waxa nooc meel walba ay mareysay meel badan ay mareysay waxay markay ka soo kacdo xariga markay qaado sokorta waxay naasra qaada naasra waxaas geeyna saal insaankaas qaada asgeeyna waa kasii qaada junior ku dhacayso junior qonto kile ugu dhacaysay waxa tula harqaana tiraayo harqaanka markaas tolo waa rida marka uu rido naasra qaadayso naasraas waxay geynaysaa geed oo tiro oo dhaayo tirada qasabka la dhaayo number waa si gudbina maqaasiinka sokoraas gudbina maqaasiin sokor markay gasho shaqaale ayaa joogo oo markaas ka qaaday naasra oo rasaynayo ma jirtaa marka haatan marka laga hadlayo oo kale makiinadaha warshada ay lahayd wax ka fiyow ama la oran karo waa laga badbaadiyay warshada isna Jowhar waxa damaanta ka fiyow oo isbaras sare waxa ka jirta laamahaas hore kor u taagan inta kala baaba way waxa ma anfacayaan okay waata aad u maaqsantaa marka ugu dambeysay waxaan rabaa inaan su'aal ahaan aan ku weydiiyo goorma burburkan ku yimid xilliga aad oran karto waa la fiiqday warshada ama burburkii ugu horeeyay goorma ku dhacay wallahi burburku ugu horeeyay wuxuu ku dhacay marka shaqadeeda waxay hoos u dhacday 1900 iyo ma aragtay 80 iyo 8 wixii ka dambeeyay 1900 iyo 91 macnaha wadanka dhan haba wada burburay markaas 91 waa la bilaqaystay ilaa 92 waa la bilaqaystay ever ugu dambeyntii waxa laga yaabaa mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamka inay ku daawanayaan maxaad ugu baaqaysaa adigoo kamid ahaan jiray shaqaalihii warshadan marka aad soo istaagto ama dadka qaarkood markay arkaan xasuus badan ay galayaan ama qaarkood ay iska ilmeenayaan maadaama xaruntu ay tahay wax qadiimiya bulshaduna ay tahay waxay si aad u jeceliin maxaad ugu baaqaysaa wallahi waxaan ugu baaqayaa dawladda Soomaaliyeed in ma aragtay warshadii oo war la muujiyo la dhiso qasabay soo saaray jirtay digir ay soo saaray jirtay galey soo saaray jirtay liima dhanaan ay soo saartay cimba ay soo saaray jirtay maxay soo saaray jirtay bambeel ma soo saaray qud ay soo saaray jirtay waxyaabihi ay soo saaray jirtay oo dadweynaha ku noolaay ee la cunay ee nolosha dadka ahay in noo soo nuqol soo celiyo oo sideedii laga dhigo waan jecelnahay aad iyo aad hadii aan helino waan ugu riyaaqaynay dawladda واتاد بو ماسين داوديال ورشد سكرتا هاتان بربرka ku yimid dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin inaan mar kale dhismo lagu sameyn karin laakiin hay'adaha iminka ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya ayaa baaqa waxa uu si toos ah ugu soconaya si hadii mar kale ay heli karaan in dhismo ay ugu sameeyaan iyo madaxda qaranka Soomaaliya burburka dalkeena ka dhacay kaliya lagama dhaxlin ee burburta warshada sokorta ee magaalada Jowhar laakiin waxa jira dhismooyinka ganacsiga ee dalkeena uu lahaa in inta badan ay ku burbureen dagaaladii sokeeye ee dalkeena ka dhacay ولنا وحنا قد داورنا سان تي في سامساد مقالة جوهر وهجاك داود يال ولي وحنا كوجد جنا برنامج كي أنا وجو مقعدنا بقشة الشوار يتيفيجا الصمصد
sida aad daawanaysaan daawadayaal haatan waxaanu taaganahay xaafadda horseed oo ka mid ah xaafadaha ugu caansan ee ku yaala degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe halka aad daawanaysaan daawadayaal tusaale ahaan haddii aanu soo qaadano birta dheer waa birarkii taariikhiga ee magaalada Jowhar lagu yaqiinay waxaana dhisay dowladda dalka Jarmalka sida daawanaysaan daawadayaal barnaamijka waxaan ugu talagalay inaanu ku soo bandhigno guud ahaan jawiga magaalada Jowhar ee xarunta Shabeellada Dhexe tan iyo markii ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika AMISOM ay gacanta ay u gashay sida aad ka horeysaan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe waxay ka mid tahay gobolada ugu caansan gaar ahaan degmooyinka ugu caansan ee dalkeena Soomaaliya waxa ay qiraadkeeda ay ku tiirsan tahay xoolaha iyo sidoo kale beeraha waxaana jooga dad aad u fara badan kuwaas oo intooda badan ah dad beeraley marka laga hadlayo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe taariikhdeedu waxa ay tahay mid qadiimi ah haatan waxa magaalada ka dhacay isbedel aad u ballaaran taasi oo ay ka dambeeyeen kadib markii ay gacanta ay u gashay xarakada al-shabaab magaalada Jowhar waxa ay ka mid tahay magaalooyinka inta badan muddooyinkii ugu dambeeyay ay gacanta ay ku hayeen al-shabaab waxa jira burbur badan oo magaalada soo food saaray kuwaas oo la tibaaxayo oo dadka deegaanka qaarkood ay noo sheegeen inay geysteen al-shabaab markii ay magaalada ay isaga baxayeen xaafaddan aanu taaganahay ee horseed haddii mar kale aan u soo laabto waxaa ku yaala goobo qadiimiya oo runtii iskuulaad ay ka mid yihiin iyo sidoo kale xarumo caafimaada waxaa jooga bulsho noocyo kala duwan oo runtii ka mid ah dadka deegaanka magaalada Jowhar waxaa sidoo kale xaafadda horseed ay ka mid tahay ama ku yaala xarumo badan oo ay ka mid yihiin guryo hadda dhowaan dhismooyin lagu bilaabay kuwaas oo ay sameeyeen hay-ado magaalada Jowhar soo gaaray sidoo kale waxa ay leedahay goobo beera oo aad iyo aad u qurux badan marka aad timaadaan isla markaana nolosha ahaanteedaba aad ugu macaan badnaanaya qofka markaa soo booqanaya magaalada Jowhar ee xarunta Shabeellada Dhexe dhinaca kale daawadayaal magaalada waxaa iminka dhex maraya sidaad arkaysaan xoolihii oo uu ka mid yahay geeli oo iminka daaqi iyo beerihii ka imaanaya waxaana ay tani ay tahay in dadka deegaanka intooda badan ay isugu jiraan dad xoolo dhaqata iyo sidoo kale dad beeraley geela waxaad moodaa markaan inuu ka soo kabsamayo abaarihii ka dhacay sanadkii tegey ee dalkeena Soomaaliya waxaa ka dhacay magaalada Jowhar iyo sidoo kale guud ahaan gobolka waxa ka da'ay roobab kaasi oo dadka deegaanka iyo sidoo kale guud ahaan gobolkaba ay biyahaasi ay noqdeen kuwa waqti badan ay sugayeen isla markaan haatan waxyaabo badan ay kaga bixi doonaan dib waxa u soo baxaya beerihii caanka ahaa ee lagu yaqiinay degmada Jowhar waatay daawadayaal bartama ayaanu kaga jirnaa barnaamijkii booqashada ee magaalada Jowhar ee TV-ga Samsat haatan waxaanu taaganahay buundada aad wada arkaysaan ee Buulasheekh oo ka mid ah buundooyinka ku yaala magaalada Jowhar waxa lagu kalaagaa oo inta badan lagu baara dadka degan magaalada Jowhar haatan waxa fadhiya oo fadhisaba ka dhistay ama jooga ciidamada dowladda qaranka Soomaaliya iyagoona halkaasi amaanka ku xaqiijinaya buundadan waxa ay ka mid tahay buundooyinka taariikhiga ee lagu xasuusan karo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka guud ee Shabeellada Dhexe sidoo kale waxa hoos mara meel ay biyaha maraan isla markaana biyaha waxay tagaan beeraha aad arkaysaan oo labada dhinac ka jira buundada hoosteeda waxayna ka mid tahay goobaha runtii la oran karo in la soo gudbiyo oo dadka loo soo gudbiyo gaar ahaan dadka reer Jowhar oo kale oo hadda barnaamijka daawanaya
sida daawadayaal aan idiin ballan qaadnaba waxaanu diyaar u nahay inaan idiin soo gudbinno guud ahaan jawiga guud ee magaalada jowhar iyo muuqaalada qadiimiga iyo sidoo kale isbedelada ka dhacay magaalada jowhar tan iyo wixii ka dambeeyey 22kii sano ee dalka uu burburka uu ka dhacayay haatan waxaanu taagannahay goob kale oo qadiimiya oo runtii dadka reer jowhar marka ay daawanayaan TV-ga ay xasuus dheer ay gali doonaan waxaan rabaa mid ka mid dadka deegaanka inaan su'aalo dhowr aan ka weydiiyo bal halka aanu taagannahay magaceeda aniga oo aan idiin qarinayo iyo sidoo kale waxyaabaha lagu yaqaano iyo shaqooyinka dadka halkaani ay ka samayn jireen ugu horreyn kusoo dhawo TV-ga Samsad xaruntiisa maanta aanu joogno ee jowhar waa aad iyo aad ugu faraxsanahay midda koowaad anigoo ah taksiilaha magaalada Tanjowhar gaal ahaan waxaan idin sheegayaa in hadda shacabweynaha ay dhammaan lagu wada faraxsan yihiin maadaama ay dawladda federaalka Soomaaliya ay gacan ku haynta yeelatay marka daawadayaal waxaan soo dhawaada leedahay isku soo dhawaadaan waa aad u maasanta hadda xageen taaganahay dadka waa u qari waxaan nahay dadka deegaanka baa jawaabta iska leh hadda waxaan taaganahay busaajada horseed dhanka tagaasida magac kale miyaa loo yaqaanaa magac kale waa loo yaqaanaa kasoo horjeedka baargambar oo sida aad loo garanayo sida aad iyo aad loogu garanayo ka war hadda marka halkan magaadiidka noocyadu kala duwan baa yimaada mise gaadiidka yaryarka oo caynkan oo kale oo tagaasida gaadiidka yaryarka oo caynkan oo kale oo tagaasida yimaado kuwa kalena way soo galaan laakiin magaalada qaybooyinkooda kale u kala degtaan ka waran isbedel miyaa kaga muuqanayo markii dawladda ay soo gaartay magaalada jowhar iyo xilligii shabaab isbedel weyn hadda ay hor leedaaba inta ka horeysa waa cikirneed maxaa kala kulmi jirteen as leedahay xarakada al-shabaab kale xarakada al-shabaab shaqa yara mahane wax kale hadda oo faragelin iyo dhib iyo qas midnaba ma lahayn horta jowhar waxay leedahay xarumo kala duwan oo haddii ay noqon leedahay caafimaadka iyo sidoo kale waxbarashada waxaana ilaahay haatan aan jirin cid isku xil qaartay ama isku xil saartay in ay mar kale ay soo abuurto shaqooyinkii dadka loo sameyn lahaa iyo sidoo kale in mar kale dib u dhis lagu sameeyo xarumaha caafimaadka iyo sidoo kale xarumaha waxbarashada oo inta badan muhiim u ah bulshada meel ay isugu yimaadaan waatahay daawadayaal weli waxaad ku guda jirnaa barnaamijkii booqashada magaalada jowhar iyo TV-ga caalamiga ee Samsad waxaanu taagannahay markaan daawadayaal xaafadda Isnaay oo ka mid ah xaafadaha ugu qadiimsan ee ku yaala magaalada jowhar isla markaana si aad ah loo garanayo xaafadda waxaa ku yaala goobo badan oo taariikhiya oo ay ka mid tahay warshado iyo sidoo kale xarumaha wasaaradihii hore ee dawladda Soomaaliya kuwaasoo inta badan halkaani ku imaan jiray ama xafiisyo ugu yaalay waxaa sidoo kale xaafaddan ku yaala goobo fara badan oo qadiimiya oo ay ka mid tahay dabaqa iminka idiin muuqanaya oo burbur baahsan uu soo gaaray wixii ka dambeeyay burburkii dalkeena ka dhacay dabaqa aad arkaysaan daawadayaal ee haatan sida ugu burbursan waxa uu yahay sida dadka deegaanka ay ii sheegeen gurigii ugu horeeyay ee laga dhiso magaalada jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe waa dhismo qadiimi ah oo qof walba oo garan karo mar haddii la yiraahdo degmo ayuu saldhig u yahay waana dhismo inta badan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer jowhar iyo gobolka Shabeellada Dhexe ay si aad u yaqaanaan si kale haddii loo dhigo xaruntaani waxa ay tahay halka ay shaqaalaha dawladda ay mushaarka ay ku qaadan jireen haddaba si aan arintaasi iyo arrimo kale oo tafaasiil badan u baahan aan wax uga ogaano isla markaana bulshada ugu soo bandhigno waxaanu wareysi la yeelanaynaa Maxamed Cali Ganey ama Maxamed Cali Tuurere oo Ganey ku magac dheer waxa uu ka mid yahay dadka ku dhashay magaalada jowhar in muddaana ku noolaa isaga ayaa waxa uu xogogaal u yahay dhismaha iminka idiin muuqanaya oo burburka baasan uu soo gaaray Maxamed Cali Ganey ama Maxamed Tuurere soo dhawow TV-ga Samsad ee xaruntiisa magaalada jowhar ku soo dhawow ugu horeyn bal faahfaahin naga sii bal dhismaha iminka aanu taaganahay bismillaahir rahmaanir rahiim dhismaha aanu taaganahay oo dusheena dambe ku aadan waa Adrisooni Generale waxaa xiriga laga jaray 1918kii waxaana waxa laga sii jiray shaqaalaha Isnaay ka shaqeeya bankina waa ahaay dadkana waa lagu qaabajilay qaybta hoosna bankiga qaybta sarena waxa deganay dadka maamulka haya marka waxa leedahay xarunta guud ee gobolka markaasi laga maamulay marka laga hadlayo mushaar bixista iyo soo dhaweynta dadka degmada imaanayo waa sidaas qaybta sare waxa ku taal lama bir oo kor u taagan mid waxa ka loola jiray oo ka taagnaa calanka Soomaalida midna calanka Talyaaniga oo waxa dhisay dalka Talyaaniga dhisay bal ka war marka dhismahan oo kaliya miya hadda jowhar ugu horeeya dadka qaar waxay sheegeen inuu yahay dhismihii ugu horeeyay ee magaalada jowhar laga aasaasay
anigu horta ahaan waa dad baa iiga horreeyay laakiin aan ku soo gaaray in dhismahan iyo kaabadaha buundooyinka inay ka mid yihiin waxyaabihii ugu horreeyay oo dhisay duuka dela abrusa oo reer kale u dhashay meeqa san u dhisay marka oo qiyaas ahaantii as leedahay dhismahan waa uu ku yaala magaalada Jowhar dhismahan waxa xiriga laga jiro xafladiisa la cunay 1918 waata aad baad u mahadsantahay waa hagaag daawadayaal aad buu u mahadsan yahay maxamed cali tureere oo ku magac dheer ganay waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka in muddo ku noolaa isla markaana waxa uu iga warbixinayay dhismaha iminka aad arkaysaan oo ah goob qadiimiya waataa daawadayaal dhinaca kaleeto marka laga hadlayo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe waxaa ku yaala waxyaabo kale oo rabbaaniya oo mucjisooyin ah kuwaasoo inta badan dadka imaanaya magaalada Jowhar ay sawiro ay ka qaadaan isla markaana ay u soo dalxiis tagaan sidaad arkaysaan daawadayaal waxaa halkan ku yaala waa laba geed kuwaasi oo isaga dhigay qayb ka mid ah lama ka soo kala baxay labada geed ayaa la tilmaamayaa daawadayaal in aysan islahayn isla markaana waxa ay arintani ay tahay mucjiso rabbaaniya oo xagga alla ka timid waxayna ka mid tahay waxyaabaha sida gaarka loogu yaqaano magaalada Jowhar hooyo Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ee dawladda ee dalkeena Soomaaliya ayaa waxa ay tafaasiil laga siinaysaa bal sida geedahani ay arkeen iyo goortii arkeen iyo waliba dadka inta badan halkan soo gaaraya iyo waxyaabaha markaasi ay geedahani ay ka qaataan bismillaahir rahmaanir rahiim geedaha markaan aragnay iyo soo isugu dhigay markaan aan arkaynay waa yaryaraayeen ka bacdi koreen waa laba geed islahayn midna halkeeray ka timid midna xagay ka timid igu isku dhigana aragnay mana dhaweyn hadda dhowr sanadood ka soo wareegatay markaan arkaynay marka iyagoo yaryar isku dhigeen kadib isla weynaadeen iyagoo yaryar isku dhigeen waana weynaadeen nimco alla ku sii habeen qura la iskama qaado qeyraadka dabiiciga ee dalkeena uu leeyahay iyo nimcooyinka uu leeyahay daawadayaal waxaa ka mid ah webiyaasha dalkeena mara oo ay ka mid yihiin webiga Shabeelle iyo webiga Juba haatan daawadayaal waxaanu taagannahay webiga Shabeelle oo mara degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe sida aad arkaysaan daawadayaal nimcada alla uu ku nameystay ama uu dalkeena uu siiyey waxaa ka mid ah halka oo loo yaqaan xiintooy waa laami waxa biyaha ay u soconayaan si aad u qurux badan waana wax uu alla uu ku maneystay dhulkeen hooyo booqashadii barnaamijkeenan ayaanu ku guda jirnaa oo aan ugu magacdanay booqashadii magaalada Jowhar iyo TV-ga Samsad waxaa jirta caruurta ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka in maalin walba ay u soo dalxiis tagayaan halkaani iyagoona u soo dabaalanaya dadka deegaanka ayaa waxa ay dad inta badan dawaasha si aad u yaqaan isla markaana webiga ku dabaalanaya sidoo kale daawadayaal waxa jira bulshooyin kale oo ka kala yimaada degmooyinka iyo deegaano kale oo iyaguna u soo dalxiisagaya magaalada Jowhar oo iyadu aanu oran karno waxay ka mid tahay goobaha ugu quruxda badan ee dalkeena hooyo uu leeyahay waxa kale jira in dadka deegaanka iyo dhalinyarada deegaanka iyagu ay yihiin ku maalin walba u soo dalxiis tagaya kuwaas oo halkaas u imaanaya in ay ku dawaashaan ama biyahaasi ay ku raaxaystaan qaarkood dhalinyaradaasi ayaan iminka isla joognaa oo aanu wada sheekaysanayna isla markaana aad wada arkaysaan sida ay ugu faraxsan isbeddelka ka dhacay magaalada Jowhar haya magacaaga maad saaka jimca waa dabaalanaysa soo haya ka waran bal webiga ka waran caado fiican yahay yaxaasi waxaas baleeyahay maya haya ka waran adiga kaliya miya asxaab badan ku socoto asxaabtay la socoto haya waa taalo maasta adiga magaca kaafi magaca gabdhaha soo magaca wiil wiil waa kaafi magaca wiil noqdo magaca gabar noqdo waa kaafi ka waran saaka waa soo jimcaysatay just jimcays huya maalinta ku daash
waatahay daawadayaal waxaan isla soo gaarnay guntii gunaanadkii barnaamijkii dheeraa ee xiisaha badnaa ee aan ugu magac darnay booqashada magaalada jowhar iyo sidoo kale tv-ga caalamiga ee samsed halkaanu taagannahay waa halka loo yaqaano abshir cali guure ama deegaanka abshir cali guure waxa uu u dhexeeyaa degmada jowhar iyo sidoo kale degmada mahadaay ee ka wada tirsan gobolka shabeellada dhexe ee dalka soomaaliya waxaa halkaani fadhiisamo ku leh ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom waxaana ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom ay halkan inta badan ay ka sameeyaan howlgallo ku aadan sidii mar kale ay usii dabadhigan lahaayeen oo ay usii baadigoobi lahaayeen dagaalada ay kula jiraan xarakada al-shabaab iyo ciidamadooda waxaana daawadayaal barnaamijka aan ku soo gabagabaynaynaa jegboontian ugu dambeeya oo ah deegaanka abshir cali guure oo dad badan oo soomaaliyeed ay si aad ah u wada garanayaan waa cabdinaasir nuur cali socdaal oo barnaamijkan idinka soo diyaariyey gobolka shabeellada dhexe ee dalkeena soomaaliya waxaa barnaamijka hagarla'aaneed qayb weyn ka qaadanaya saaxiibkay cabdiraxmaan macalin cabdulle oo xagga kaamirada barnaamijka ii hagayey iyo sidoo kale barnaamijka waxaa farsameynayay saaxiibkay moxamed alfis dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo barnaamijkan barnaamij la mid ah oo xiise badan inta aan ku kulmayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu